sida wasaaradda kalluumeysiga oo kale ah. Mhm. Maaragtay wasaaraddii ma jirto sidii ay leedahay maanta soo kordhin kaabayaasha markay timaado ama qalabka hadduu yimaado iyo hadday timaado ii sheeg kaabaha dhaqaalaha waxaad waa boqolkiiba lixdan ay ku qaadato wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka buluugga. Mhm. Maanta boqolkiiba lixdan haddii jirtaa boqolkiiba toddobaatan wasaaradda kalluumeysiga ma soo saarto qalabyo cusub ama kalluumeysatada inay ku dhiirigeliso oo keento. Mhm. Soomaaliya marka la yiraahdo waxaa looga shaqeeyaa waa laba qaab. Mhm. qaab oo shabaag ah oo old fashion ah Mhm. iyo qaabka kale oo hadda lasoo kordhiyey laakiin caalamka uu ka yahay old fashion laakiin Soomaalida hadda inay soo saar old new fashion u yihiin Mhm. waxaana ka mid ah jeestadoo kale Mhm. iyo waxaa jiro xilli fiilo waxa la yiraahdo dadka badda ka shaqeeya ay ku Mhm. kalluumaystaan Mhm. oo matoor 15 inay qaataan 2 mayl oo kale 3 mayl oo kale inay tagaan ay Mhm. fiilo wax ku gaataan. Mhm. Marka Soomaaliyana waxaa moodaa inay ka dambeyso caalamka Mhm. oo shabaag hadda waa la mamnuucaa in wax looga kalluumaysan oo wasaaraddii ku shaqo lahayd ee dowladda Soomaaliyana in dadka u soo kordhiso qalabka hadda caalamka lagu kalluumaysto. Mhm. Marka waa in cilado jiro waxaasoo dhan. Mhm. Marka waa loo baahan yahay kaabaha inay dowladda keento oo guddiga iskaashatooyinka kalluunka ah ay keenaan. aad iyo aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan asxaabta ku xiran janaalkeena Som Gold Waves mar kale isku soo noqod wanaagsan. Maanta waxaa idin wadnaa muuqaal cusub oo aad iyo aad u xiiso badan. Muuqaalkan oo ay naga soo codsadeen qaar ka mid ah asxaabta ku xiran janaalkeena Som Gold Waves. Marka maanta waxaa ka hadlaynaa horumarinta kalluumeysiga. Sidee loo horumarin karaa kalluumeysiga? Waxaa su'aalo dhowr ah ku weydiin doonaa Kabtan Shucayb. Su'aalahaas waxaa ka mid ah bixinta shaqo fulinta adeega tababarada, sidoo kaleeto qabashada cilmi baarisyo iyo bixinta qalabka kaabayaasha iyo su'aalo kaleeto oo dhowr ah oo noocaas oo kale waxaa weydiin doonaa Kabtan Shucayb. Marka fadlan soo dhawow. Waa dhawahay Kabtan Mahad. Waan islaamiya dhammaan baada ku xiran Somali Gold Waves. insha Allah waxaan rajeynayaa su'aaluhu maanta la soo socday Mahad intaa ka jawaabi karina ka jawaabo. Kolley kabtan aniga keliya ma ahay asxaabta waa kabtan marka kabtanadu way badan yihiin bal insha Allah sida waxay haysato aad iyo aad waxaa weydiinaynaa su'aasheena ugu horeyso oo ah bixinta shaqo fulinta adeega tababarada. Marka kabtan waxaa rabnaa inaad nooga jawaabtid bixinta shaqo fulinta adeega tababarada maxay tahay? waxaa jirta ii sheeg tababarada iyo fulinta marka la yiraahdo waa labo. Mhm. Fulintu sideeda banaanba waxay ku imaadaa in wax la qabanayo shaqo la qabanayo marka tababaradana ama badda waxaa moodaa in dhalinyarta badan aysan haysan baahida tababarka ah aysan fahansaneyn waa in tababar in loo sameyn karo. Tusaale oo kale hadda markii la yiraahdo tababar ama waxaa la yidhi askariga Soomaaliyeed tababaraa loo qaaday marka la yiraahdo waxaa lasoo baraa shaqadu qaban lahaa. Waa sax. Marka ardaydeena ama dhalinyarta maanta jirta ee badda tababarada u sameynayaan tababar marka la yiraahdo dhalinyarta Soomaaliyeed basically dalka hadda waxaa ka maqan tababar marka la yiraahdo caalamka waxaa loogu talagalay tababar badda markii qofka la keenayo ama la tababaranayo muhiimadda ama focus wuxuu saaraa in wax ku shaqeeya baddaas sidii doon loo wadi lahaa sidii doon u raaci lahaa si nidaamka kale loo xigi lahaa. Dayactirka shabaagta. Dayactirka shabaagta xitaa ayada xitaa barashay ku timaada tababarkay ka mid tahay. Waa sax. Inaa xitaa darawal noqoto Haa. ka mid tahay ii sheeg tababarka iyo cilad bixinta matoorka. waxaasoo dhan waxay ku imaadaan tababarka. Weli xitaa waxaa jirta ii sheeg fulinta haddaa sideeda banaan maqasho fulin qofku wuxuu uu sameeyo Sax. oo wixii ku dhaqaaqay laakiin tababar marka la yiraahdo ama askari ciidan badan ha noqdo qof jaamacad dhigto
ama siinba wax kasta oo ku saabsan badda ah tababar la dhaxay maantana la joogo 2026 oo hadda bishiisa koowaad ku jirno Soomaaliya weli ma gaarin heerkii tababarada oo caalamka ah hadda horumarinta lagu sameeyey kalluumaysiga weli maysan gaarin marka waa baahi jirto dhinaca dowladda ah iyo jaamacadaha dalka ee dhiga cilmiga badda. marka kabtan waxaa kaleeto ku weydiinaynaa qabashada cilmi baarisyo in la sameeyo cilmi baaris oo ku aadan xagga kalluumaysiga ama maxaa la yidhahdaa kawaanka malayga oo kale iyo xeebaha cilmi baaristaas qabashada cilmi baarista iyadana waxaa rabnaa inaad weydiiso si ay uga faa'iidaystaan bahda jecel inay wax badan ka ogaadaan nolosha badda iyo kalluumaysatada qaabka ay iskugu xiran yihiin nidaamkaas. cilmi baaris markay timaado horta cilmi baaris badda wax badanaa la cilmi baaraa waxaa la cilmi baaraa horumarinta deegaanka kalluunka in cilmi baaris lagu sameeyo kalluunka naftirkiisa in shaybaar la geeyo waxaa kaloo baaris markay timaado wax lagu sameeyo shidaalka badda xitaa baaris waa saxtaa galaa waa hadda dowladda Turkiga waa aragtay waxay soo bandhigaan maxaa baaris shidaalka ku jiro biyaha Soomaaliya badda Soomaaliya marka hadda waxaan ka hadlaynaa waa kalluumaysi Soomaalida maanta jirto baaris markii la yiraahdo horta ma haystaan wax basic la dhaho oo shaybaar guud oo dalka ma leh oo wax lagu baaro xagga baarista ah baaristan hadda waxay kusoo aruurtay dhalinyarada barata cilmiga badda markay baaska koowaad qaadanayaan inay sameeyaan research iyo oo markaas wax loo dira tusaale kale anaga hadda markaan jaamacadda dhameynay waa ogtahay oo testaa buuggiisa diyaarinay waxaan sameynay isheeg baarisyo oo weli xitaa ku jirtay isheeg anagoona badanaa google-ka ama aan culays badan saarin kulli aan ka soo qaadanay in khulaasada culimada badda maxay ka dhigeen noo diray inuu ahaayo kale waraysi inaan soo sameyno kawaanka inaan tagno kalluumaysatada inaan soo wareysano waxaasoo dhan wixii anaga aan u baxnay oo anagaa soo siyaadino oo aan doono buug markaa diyaarin maadu ku tahay sidoo kale waxaa jirtay inaan ChatGPT-gan iyo isheeg Google-ka inaan wax badan aan kasoo qaadanno anaga maskaxdeena wixii dalkii in at least aan sameyno xitaa baaris ah wixii aan buuggaas ku qorno in xataa at least keed ay noqdaan wax itus oo taabsiya oo xaqiiq ah oo wadanka ka jiro marka midda kaloo jirtaa waxay tahay baaris markii la yiraahdo horta library ama shaybaar weyn oo badda ah maanta dowladdana uma furno jaamacadaha marka badda oo cilmiga badda dhigaan ayagana sidoo kale ma laho shaybaar guud ah oo baaris guud ah marka dhalinyarta xitaa weli ma fahansano isheeg badda sida cilmi baaris loogu sameeyo sida isheeg xog looga aruuriyo wax keedna dalka ah male oo xagga cilmi baarista ah marka baahida jirto waxay tahay baaris markii la yiraahdo horta waa wax inaa u hordasho wixii ay yihiin sheegto kalluun ama haddii kalluun uu noqdo haddii oo sidoo kale uu noqdo xeeb hadaa baarayso environmentalka markaa ka sheekeynayso waxaasoo dhan waxay soo gelayaan baaris marka cilmi baarista ay soo gelayaan hadda inkastoo aan leenahay hay-adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed ay jirto oo maanta ayadana record bas inay u keed garaysa maaha aan u haynin shaybaar xitaa wax hadda kaliya wax laga soo qaado ama maanta isheeg amooda in waxay ku tiirsan yihiin waa hay-adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed hay-adduna maanta ayaduna ma leh wax oo isheeg keed ah ama shaybaar ah laakiin waxay haystaan in record inay daatada xareeyaan marka baarisna hadday timaado waxaa loo baahan yahay qalab waxaa loo baahan yahay isheeg wixii wax lagu qabanayay baarista ahaa waxyaalo fara badan oo maanta loogu talagalay badda aa loo baahan yahay marka baarista wax sahlan ma aha marka wax baarayso wax sahlan ma aha laga yaabaa marka hadda dalka markaa joogto kale hadda caasimadda markaa joogto kalluumaysatada caasimadda ka shaqayso kalluumada ama xitaa wixii ku saabsan baddaas tusaale kale hal kalluun lagu weydiinaya
dadka xamar ku nool ama caasimadda ku nool markay kalluunkaas magacay u yaqaanaan kalluumaysatada oo xamar ku dhaqan marka xamar ka baxdo aad tagto tusaale oo kale Kismaayo tagto ama Boosaaso tagto ama Baraawo tagto ama Isheeg Berbera aad tagto oo Naaskura aad tagto dalkii halkaas eray wuxuu halkaas kalluuna wuxuu isku bedelayaa 27 magac oo deegaanka marka baarista taasaa ka mid ah marka dhalinyarteena maanta ma leh wax on rikoodna ma sameeyaan baaris markii la yiraahdana xitaa shaybaarka ma hayaan marka baaris markii la yiraahdo waa boqolkiiba boqol wax badda markii la joogo cilmiga badda waa wax ugu badan shaqada ugu badan taas ah maantana ayadina ma helo oo on record in hadda hay'adda baarista inay u samayso maaha baaris kale oo dheeri ahayn shaybaarka inuu yaalo deegaanka xitaa markii fayadhowrka deegaanka laga hadlaayo waa baaris kale ayadana marka total wax baaris ah on record in hadda lagu hayo maaha wax ah oo maantay meeshay base guud oo dalka ah ma leh waa maasan tahay su-aasha xigta ee barnaamijkeena waxaan ku weydiinaynaa kor u qaadista wada shaqaynta ka dhexeysa kalluumaysatada iyo wasaaradda hadda ma jiraan guddi iskaashatada hadda waxay sameeyaan mararka qaar waxaa moodaa in wasaaradda xoogaa xataa biliska inay la hadli karaan marka horta wada shaqayn boqolkiiba Isheeg 80 ama boqolkiiba 60 ama boqolkiiba 70 ah maanta wasaaradda lama noqdo guddiga iskaashatada kalluumaysiga wasaaraddan waxaa moodaa in halkaas ay ka tahay Isheeg cilad jirto waayo haddii Isheeg wasaaradda xiriirka waxaa guddiga iskaashatooyinka iyo dadka kalluumaysiga ah iyo kambaniyada hay'adaha kale aan dowliga ahayn oo badda ah haddii xiriir fiican ila lahaa waxaa moodaa in horumarka xataa maanta ay joogaan Soomaalida in mid ka badan oo imaan lahaa marka halkaas waxaa waaye dulduleelo ama dhaliilo ka jiro wasaaradda xaggeeda marka waxaa kaleetoo ku weydiinaynaa kor u qaadista suuqyada wax soo saarka kheyraadka badda ayaga way jiraan suuqyada waxaa geeya Soomaaliyeed dhammaantooda hadda waxaa moodaa in mararka qaar ay sii lumayso cilmiga badda oo dhalinyarta aanan maanta ku baraarugsanayn suuqyadii kala jirana maanta ay sii dabar go'ayaan waxaan fursadda rabaa inaan uga faa'iidaysto qof kasta oo maanta oo nidaamkan cilmiga badda ku saabsan ku lugta leh in ay baraarujiyaan dadka ama dhalinyarada ama goobaha lagu gado inay bariyaan ama suuq geynta badan oo kalluunka inay soo saaraan sida wasaaradda kalluumaysiga oo kale ah maantay wasaaraddii ma jirto xiriir ay leedahay maanta oo soo kordhin kaabayaasha markay timaado ama qalabka hadduu yimaado iyo hadday timaado Isheeg kaabaha dhaqaalaha waxaa waa boqolkiiba 60 qayb qaadato wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka buluugga maanta boqolkiiba 60 haddii jirtaa boqolkiiba 70 wasaaradda kalluumaysiga ma soo saarto qalabyo cusub ama kalluumaysatada inay ku dhiirigeliso oo keento Soomaaliya marka la yiraahdo waxaa looga shaqeeyaa waa laba qaab oo shabaag ah oo old fashion ah iyo qaabka kale hadda la soo kordhiyay laakiin caalamka uu ka yahay old fashion laakiin Soomaalida hadda inay soo saarto old new fashion u yihiin waxaa ka mid ah jeestadoo kale iyo waxaa jiro xilli fiilo waxa la yiraahdo dadka badda ka shaqeeya ee ku kalluumaystaan oo matoor 15 inay qaataan 2 mayl oo kale 3 mayl oo kale inay tagaan fiilo wax ku gaataan marka Soomaaliyana waxaa moodaa inay ka dambeyso caalamka oo shabaag hadda waa la maqluucaa in wax looga kalluumaysan oo wasaaraddii ku shaqo lahayd dowladda Soomaaliyana in dadka u soo kordhiso qalabka hadda caalamka lagu kalluumaysto marka waa in cilado jiro waxaasoo dhan marka waa loo baahan yahay kaabaha inay dowladda keento oo guddiga iskaashatooyinka kalluunka ah ay keenaan kor u qaadista
haddii timaado madow iyo xirfadaha kalluumaysiga dowladda dhexe ee Soomaaliya way warweel dugsiyo tababaro oo badda ah maanta laakiin 2026 la gelaa dowladda dhexe ma leh base isheeg oo ama dugsiyo tababar oo fara badan dalka ma jirto inkastoo ay yar yihiin waana carqalad jirto taas dhalinyarada Soomaaliyeed maanta boqolkiiba 80 waa dhalinyaro dalka markii laga hadlo generationka marka wacyigelin ma haystaan waa in dowladda wacyigelin sameysaa waa in dadkii la fahansiiyaa cilmiga badda marka waa in la helaa marka isheeg dugsiyo fara badan oo tababar ah waxaan jeclaan lahaa wasaaradda kalluumaysiga iyo dowladda dhexe Soomaaliya inay support gareeyaan dhalinyarta maanta jirto u furaan dugsiyo badan oo farsamada ah waayo Soomaalida hadda waxaa moodaa inay kasii dabar go'ayaan dadka baranayay isheeg cilmiga badda oo maanta ay ku yar yihiin marka dadkii hore da'da ahaana ilaa hadda waxaa moodaa isheeg maanta haddaanan inta hadda jirta aan laga gaarin inay hadda xogtooda ama khibradda ay lahaayeen inay hadda isheeg meesha ku dhinto marka dhalinyartiina aysan haysanba in maanta wax barnaamijyo ama wax cilmiga khibradii wixii dhan kasoo shaqeynayay dowladda dhexe Soomaaliya qofkii la diray oo badda loo diray oo nidaamka soo bartay haddana hadda haddii ilaahay cimri u daayo waxaan jeclaan lahaa inaan ka faa'iidaysano insha Allah waan sameyn doonaa barnaamij ah in dadka waaweynaa intaan karaankeena aan dadaali karno inaan xog ama data aan ka sameyno ayadoo aan ugu soo gudbinayno janaalka marka intaasaan kusoo gabagabeynaa waxaan rabaa meesha inaan ka dhaho dhalinyaro baddiina way u baahan tahay dalkiina kheyraad buu buuxaa xagga badda ah way jirtaa cilado jiro xagga dowladnimada haddii ay noqoto iyo xagga kaleba waxaan jeclaan lahaa in aan u dhabar adeegno dhammaanteenaba inaan wax soo saarka dalka aan ka qayb qaadano xagga badda ah aniga kulli waxaan ka hadlaa bad waxaa ka sheekeynaya waa bad marka sideedoo kale dhalinyarta badda rabta inay barato waxaan jeclaan lahaa insha Allah in culayska 100% saaraan sidii kalluumaysatada ama kheyraadka dalkooda usoo baxsan lahaayeen